inkastoo adigu ku dhawaaqin oo afkaaga aan laga maqlin inta shirayga dhacday qurbaha aad ku mareysay inta badan dadku waxay ka hadlaan inaad musharax tahay siyaasadda madaxweynaha Puntland ee soo socda oo dawladda bedeli doona inaad sharaxaysid kama hayo afkaaga meel aad ka tirin anigu ma hayo laakiin dadku iyo shirarka aad qabanaysay dad baa codku u furnaa oo sheegay arinta balcaaw hadii aad noo kala dhigto ma tahay musharax runtii waxa weeyaan horta waxa la yiri waxaan la gaarin iyo waxaan lahaynba waxa weeyaan haybintoodu way dhib badan tahay anigu hamba igu jira laakiin wali xilligii aan ama oran lahaa musharax baan ama ma ahi ma ay gaarin maaratay diyaarintayda sababtoo waxa weeyaan marka aad rabto inaad hawsha qabato waxa u baahan tahay inaad diyaarin badan samayso waan qabaa hankaas waqtigeedana sugayaa dhowr iyo 10 bilood baa ka dhiman dawladda jirto waxba ka hor dhici maayo dadka qabana waxaan leeyahay oo anigana iga maqal waxaan leeyahay saadin samale ya okay diyaarin bateri diyaarinta waxa kamid ah ognahay dhaqaale baleedahay dhaqaale wax lagu doorto ragga doctor baa lagu dooran lahaa marka dhaqaaluhu muhiim badan ma in bulshadu ku qaadataa shardiga bulshada soo ah Puntland hada cod ka rabto shacabna waa baarlamaanka dabcan shacabku baarlamaanku shacabku u shaqeeyaa dadkaasi baarlamaanka ha doorto madaxweynaha Puntland intii siyaasadda Puntland ay soo jirtayna xan kala jirto daacadda kula hadlo dadka xukuumadda soo hayay dad baa lagu xantaa inay yihiin adigu warbixinta waxaan hayaa inaad tahay bariga dhankiisana degan tahay adoo si daacad iga jawaabay maxaa kugu dhiirigeliyay inaad sharxi doonto ama mustaqbalka aad ugu fikirtay saad ugu diyaar garoobayso aad igu sheegtay in xukun la og yahay Soomaalida ay ku xamato in qoys ama dad gooni ah maamulkaas hayaan loogu tagay maxaa kugu dhaliyay waxa igu dhaliyay hankayga koow waxaan qamin sida dadku qabo waxaan qabaa in la doontay loo dadaalay hawl loo maray dad lagala maaratay hadlay oo lagala xaajooday la helay marka dadka fikirka qaba baan ka duwanahay anigu dabcan oo aan maqamintaas oo aan ahay qof reer Puntland oo wax ka doonaya hadii maaratay cid aad sheegaysaa cid wax ka heli jireen aan ula simanahay kuwa hayn jiray laftigooda say u doonayna aan doonayo marka ma jirto wax iga maanicaya inaan doonin waliba kalsooni badan ku qabo inaan helayo dadka sidaas aaminsan aad u sheegaysid inaysan jirin wax ka jira maya waxaan qabaa wax ka jira oo arintaas ay bahalkii u tahay tartan ka soo ma jiro because waxa ku tusinaya oo aan tusaale kaaga soo qaadanaya hadii lagu qancayo dadku iyaga kaliya ma iyaga iyo dadka kale markii la isku daro dadka kala badan baarlamaanka markii la isku daro dadka kala badan marka inay xeelad iyo xirfad iyo xeeladaysi tahay oo ay tahay siyaasad iyo bisayl kale ay tahay baad garanaysaa taasna diyaar garowgeed marka taasna dadku waxay u baahan yihiin inay u bislaadaan u xeeladaystaan u xoolaystaan doonaan ba helayaan xukun sahlan ma aha hadii ay noqoto inaad ilaahay ku karto aad u diyaar garowdo ku dhawaaqdo musharaxnimadaada Puntland maanta ugu dambeeyay social ba ka dhacay xalayto saraakiil baa isku toogatay argagixisadii baa joogta xabashadaas badan baa jirta سأورك سياسيان حالة قفك هذا كلو سياسي كوسو فول للمستقبل كدو iyo sida aan diyaarka loogu hayn hada looga shaqeyn sawirka cabsi ku jirta mustaqbalka siyaasadda ma cabsi ku jirta maya cabsi saasi ugu jirto waayo waxaan ogahay dadka reer Puntland waxay jecel yihiin dadka reer Puntland waxay jecel yihiin nabad waxay jecel yihiin dawlad waxay jecel yihiin hanaan dawladeed oo qaabaysan oo qurxan oo ay ku qurxsanaadaan bay jecel yihiin marka waxaan ogahay dadka reer Puntland ma aha dad oo very maaratay bahalkii yani dad hangaaban ma dad istifaaca weeye dad dawladnimada u heelan ku faana wax ku qabta waxna ku qabsada weeye nabadana jecel absolutely markii lagu yiraahdo laakiin taliyihii ciidamada booliiska ku xigeenkiisa toogtay maxaa maskaxdaada soo galay waxa la doortay ku xirantay qofka keenay sida loo keenay wuxuu ahaa backgroundkiisa laakiin waxa imaanaya inuu yan ahayn ninkii lahaa meesha aragtidaada falka soo aragta afar khaldan in kasaan ogeyn dhacdada say u dhacday waxa koos garay hadii ay sax noqoto maxaa jeceshay in lagu qaado qofka ya maxaa jeceshay in lagu qaado waxa sharci ka qabo